Bismillahi Rahmaani Rahiim. Alxamdulillahi Rabbil Caalamiin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dhamaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada General Career Solution. Insha Allah maanta doo Allah awood leh raali ka noqdo waxaan soo gudbin doonaa imtixaanka maadada taariikhda ee fasalka afraad ee dugsiga sare. Imtixaankii nationalka ahaa ee la qaaday sanad dugsiyeedkii hore 2020-21ka. Insha Allah maadada taariikhda ardayga marka hore waa inuu iska fiiriyaa instruction-ka. Waxaa lagu dhahay ka jawaab dhammaan su'aalaha soo socda. Qofkii ku soo qaaday luqadda Soomaaliga wuxuu ka shaqeynaa Soomaaliga. Qofkii oo ku soo qaatay Englishka uu fudud yahay Englishka uu shaqeynaa. Qofkii Arabiga ku soo qaatana Arabiga uu shaqeynaa macna adaa dooranaysid. Insha Allah waxaan kaga shaqeyn doonaa anaga maadada Soomaaliga. Su'aasha koowaad, furitaankii dowladda Cusmaaniyiinta waxay gaarsiisay goboladeeda. Su'aasha koowaad waxaa weeyaan oo maadada taariikhda. Fiditaankii dowladda Cusmaaniyiinta waxay gaarsiisay goboladeeda. Jawaabtu waxay noqonaysaa arday xarafka ta oo ah 32 gobol. Ha hilmaamin arday inay dhahdaan subscribe, like aadna la wadaagtaan asxaabtiina. Su'aasha labaad aan gudubno. Su'aasha labaad waxaa weeye caqabadaha ugu waaweyn ee haystay ciidamada Cusmaaniyiinta marka ay furanayeen Constantinople waxay ahayd. Jawaabtu waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah wareejinta maraakiibta. Su'aasha saddexaad waxaa weeye arday dowladda Cusmaaniyiinta marka ay tabar yareynaysay waxaa lagu yeeri jiray. Jawaabtu waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah ninkii reer Yurub ee jiranaa ama ninka reer Yurub ee jiran. Su'aasha afraad, ururka Sahyuuniyadda Caalamiga waxaa aasaasay. Jawaabtu waxay noqonaysaa arday xarafka ba oo ah ninka lagu magacaabo Theodore Herzl. Su'aasha shanaad, dadka ku nool gobolka Kashmir waxaa Muslim ah. Arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah 80%. Arday su'aasha lixaad, hay'adda kaliya ee rasmiga ah ee u xilsaaran maxkamadeynta dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha waa. Arday jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah maxkamadda caalamiga ee dambiyada. Su'aasha toddobaad, golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu go'aamiyay in Soomaaliya la hoosgeeyo habka dowladnimo gaarsiinta muddo dhan. Arday su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aasha toddobaad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah 10 sano. Su'aasha sideedaad, taliyihii ugu horeeyay ciidanka Soomaaliya markii la dhisay kadib waxa uu ahaa. Arday su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa su'aasha sideedaad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah Generaal Daawud Cabdulle Xirsi. Su'aasha sagaalaad, 1976 waxaa la kala diray golihii sare ee kacaanka waxaa laga soo reebay. Arday su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah 5 xubnood. Arday su'aasha tobanaad, dhaqdhaqaaqii Mahdiyiinta waxa ay ahaayeen kacdoonkii ugu muuqday ee ka dhaca. Arday su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah Suudaan. Jamhuuriyadda Midowga Koonfur Afrika waxa ay ahayd mid ka mid ah tusaalayaasha ugu foosha xumaa xagga. Arday su'aashaas 11aad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah midab kala sooca. Su'aasha 12aad, bishii Sebtembar 1939 ciidamada Jarmalka ayaa qarxiyay dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii ay ka tallaabeen sohdinta dalka. Arday su'aashaas 12aad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah Poland. Su'aasha 13aad, waxaa ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka dad lagu qiyaasay. Arday su'aashaas 13aad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah 62 milyan. Su'aasha 14aad, dagaalkii qaboobaa ee Yurub waxay is aragtay.
ayada oo u kala qaybsan. Arday su'aashaas 14aad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah laba isbahaysi. Su'aasha 15aad kadib soo jeedintii Golaha Ammaanka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa lagu magacaabay xoghayaha guud muddo dhan. Arday su'aashaasi 15aad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah 5 sano. Su'aasha 16aad dowladaha xubinta ka ah Ururka Midowga Afrika waa. Arday su'aashaasi 16aad jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ja oo ah 54 dowladood. Fikradda aasaasida Ururka Midnimada Islaamka waxaa soo jeedinteeda lahaa madaxweynihii Soomaaliya. Jawaabteeda arday waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah Aadan Cadde. Su'aasha 18aad Dastuurka Soomaaliya ee sanadkii 1961 wuxuu ahaa dastuurkii. Arday su'aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ba oo ah koowaad. Arday su'aasha 19aad haddii aan u gudubno tiirarka dimuqraadiyadda ay ku taagan tahay waxaa ka mid ah. Arday su'aashaasi 19aad jawaabteedu waxa ay noqonaysaa xarafka ja oo ah doorasho. Su'aasha 20aad doorashadii ugu dambeysay 1969 tirada xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed wuxuu gaarayay. Arday su'aashaasi oo 20aad aanay su'aalaha gabagabada qaybta koowaad midda ugu dambeyso jawaabteedu waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah 123 xubnood ee ahaayeen. Arday u gudubna qaybta labaad oo ah ka jawaab weydiimaha soo socda. Arday weydiimaha waan ka jawaabi doonaa insha Allah. Su'aasha koowaad ee weydiimaha waxaa weeyaan sheeg laba ka mid ah sababihii gudaha ee ka qayb qaatay tabardaradii dowladda Cuthmaaniyiinta. Arday sababaha ka qayb qaatay sababaha laba loo qaybinayay kuwa gudaha iyo kuwa dibadda. Hadda waxaa lagu weydiiyey sababihii gudaha ee ka qayb qaatay tabardaradii dowladdii Cuthmaaniyiinta. Arday jawaabta dhaga oo fara waxay noqonaysaa waxaa ka mid ah 1 heshiis la'aan ka dhex jirtay dadka ku nool aan ku celiyo cafwan. Su'aasha koowaad jawaabteedu waxay noqonaysaa 1 number 1 laba ka mid ah sheega lagu dhahay. Midda koowaad waxaa waaye heshiis la'aan ka dhex jirtay dadka ku hoos nool dowladda Cuthmaaniyiinta iyo kala duwanaantooda. Arday mar kale aan ku celiyo heshiis la'aan ka dhex jirtay dadka ku hoos nool dowladda Cuthmaaniyiinta iyo kala duwanaantooda. Midda labaadna waxay ahayd tabardarida waxyaalaha keena oo gudaha waxaa ka mid ahaa ka fogaanshaha dowladda ay ka fogaatay shareecada Islaamka. Ka fogaanshaha dowladda ay ka fogaatay dowladda Cuthmaaniyiinta ay ka fogaatay shareecada Islaamka. Arday waxaan filayaa inaad fahanteen. Su'aasha labaad aan soo gudubna. Su'aasha labaad waxaa waaye sheeg laba ka mid ah muhiimadda gobolka Kashmir u leeyahay Pakistan. Gobolka Kashmir muhiimadda u leeyahay Pakistan. Arday su'aasha labaad jawaabteedu waxay noqonaysaa muhiimadda uu u leeyahay Pakistan gobolka Kashmir waxaa weeye 1 waa in laga helo dad saldhig difaac u ah waqooyiga Pakistan. Waa in laga helo dad saldhig u ah waqooyiga Pakistan. Waa in laga helo dad saldhig difaac u ah waqooyiga Pakistan. Sidoo kale muhiimadda labaad ee uu leedahay Pakistan waxaa ka mid ah gobolka Kashmir. Midka labaad waxaa waaye waxa ay xoog dadeed oo muslimiin ah u tahay gobolka Punjab. Waxa ay xoog dadeed oo muslimiin ah u tahay gobolka Punjab. Waxaan filayaa inaad fahanteen. Su'aasha saddexaad aan u gudubna arday. Madaxweyne Aadan Cadde waxa uu ku faanay inuu wareejiyay hoggaanka dowladda aan qofna fikir dartii ugu xirnayn. Maxaa ka fahmi karnaa hadalkaasi?
ardayda su-aashan waxaa waaye waa faham oo casharka si toos uguma jirto. Haddii aad tacbiirin waxay noqonaysaa maadaama madaxweynaha uu xukunka uu iska dhiibay asagoona qofna fikirkii dartii ugu xirnayn, waxaa ka fahmi karnaa muhiimadu ay leedahay qaabka ugu dadaali jiray madaxweynaha in iyadoo heshiis leeyahay oo hogaanka u wareejiyey oo dimuqraadiyadda ka fahmi karnaa. Sidoo kale waxaa ka fahmi karnaa in oo madaxtinimada ay tahay qori isku dhiib oo calashaan waqtigii oo loo baahnaa oo muddaxileedka hadduu dhamaado waxaa fiican inaad xilka iska wareejisid si aad ugu tagtid dadka adigoo sharaf leh oo dadka ay ku jecel yihiin. Marka arday walba wuu tacbiiri karaa si oo markaasi oo fahamkiisa isagoo bisgareynayo uu ka jawaabaa su-aashaas. Aan u gudubno su-aasha afraad. Su-aasha afraad waxaa lagu weydiiyey sheeg laba ka mid ah guulihii xukuumadda militariga Soomaaliya 7 sano ee ugu horeeyay. Ardayda su-aasha afraad jawaabteedu waxay noqonaysaa guulihii ay gaareen waxaa ka mid ah 1 dhinacyada waxbarashada guulo waaweyn oo taariikhi ka gaareen. Sidoo kale dhinacyada ee guulaha ay ka gaareen waxaa ka mid ah ardayda su-aasha afraad ku celiyo sheeg laba ka mid ah guulihii xukuumadda militariga ee Soomaaliya 7 sano ee ugu horeeyay. Ardayda su-aashaasi afraad jawaabteedu waxay noqonaysaa guulaha waxay ahaayeen dhinacyada warshadaha, beeraha iyo xoolaha. Calashaan dhinacyo badan waxay ka gaareen guulo. Waxaa ka mid ah dhinacyadaasi warshadaha, waxaa sidoo kale ka mid ah dhanka beeraha ka mid ah oo laba ka mid ah sheega lagu dhahay labadaas waa sheegi kartaa bis arday laba ka mid ah kaliya laga rabaa warshadaha iyo beeraha iska dhigi kartaa bis. Arday oo gudubna su-aasha shanaad. Xukun waa kii eebe ma ahan kiina dhalanteedka ah. Maxaa loola jeedaa hadalkaani? Ardayda su-aashani waa su-aal fahan ah oo waxaa lagu dhahay xukun waa kii eebe ma ahan kiina dhalanteedka ah. Maxaa loola jeedaa hadalkaani? Hadalkan waxaa loola jeedaa arday haddii aad tacbiirin waxay noqonaysaa oo qof walba ra'yigiisa soo ku cabirayo tacbiirina. Xukunka waa midka uu alle u jideeyay ma ahan keena dhalanteedka ah. Marka waxaa la rabaa in lagu dhaqmo shareecada islaamka in lagu dhaqmo oo wax kale oo lagu dhaqmaayna waa inay aadaan wax dadka raali ka yihiin oo aana sharciga islaamka iyo shareecada islaamka ka hor imaanaynin. Ardayda su-aashaas qof walba si uu u fahmo u tacbiiriyo. Aan u soo gudubno su-aasha lixaad. Su-aasha lixaad waxay noqonaysaa arday sheeg laba ka mid ah sababihii dhaliyay dagaalkii labaad ee adduunka. Ardayda su-aasha lixaad jawaabteedu waxay noqonaysaa laba ka mid ah sababihii dhaliyay dagaalkii labaad ee adduunka waxaa ka mid ah 1 heshiiskii Versailles iyo sidoo kale midka labaad waxay noqonaysaa isbalaarintii Japan. Sababihii ugu waaweynaa labadaas ka mid ah. Su-aasha toddobaad. Sheeg laba ka mid ah howlihii golaha guud ee qaramada midoobay. Su-aasha toddobaad jawaabteeda ardayda waxay noqonaysaa howlihii golaha guud ee qaramada midoobay waxaa ka mid ah 1 kooxda dalalka Afrika ka mid ah. Midka labaadna waxaa waaye kooxda dalalka Aasiya. Su-aasha sideedaad. Sheeg laba ka mid ah ujeedooyinka loo aasaasay Jaamacadda Carabta. Ardayda su-aasha sideedaad jawaabteeda waxay noqonaysaa ujeedooyinka loo aasaasay Jaamacadda Carabta waxay ahayd 1 isku duubidda aragtida siyaasadeed ee dowladaha xubnaha ah. Isku duubidda aragtida siyaasadeed ee dowladaha xubnaha ah iyo sidoo kale midka labaad waxaa waaye xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha xubnaheeda ama mid u dhexeeya xubnaheeda iyo dhinacyo kale. Midda labaad waxaa waaye ku celiya ardayay xalinta khilaafaadka ka dhex ku celiyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha xalinta khilaafaadka ka dhex dhasha xubnaheeda
ama mid u dhexeeya xubnaheeda iyo dhinacyo kale. Su-aasha sagaalaad, sheeg laba ka mid ah caqabadaha dibadda ee soo wajahay Ururka Midowga Afrika. Su-aasha sagaalaad jawaabteedu waxay noqonaysaa waxaa ka mid ah: 1. Ka hortagga raadadkii dagaalkii qaboobaa. Midka labaadna waxaa waaye dardargelinta ka qaybgalka Afrika ee ururada caalamiga. Waxaa waaye aan ku celiyo: ka hortagga raadadkii dagaalkii qaboobaa. 2 waxaa waaye dardargelinta ka qaybgalka Afrika ee ururka caalamiga. Su-aasha ugu dambeysa ee 10aad, waxaa waaye sheeg mid ka mid ah ujeedooyinka sharciga. Su-aashaasi jawaabteeda waxay noqonaysaa guulgaarsiinta amniga dadka. Waxaan filayaa inaad garateen, aadna ka faa'iideysan doontaan dhammaan su-aalihii iyo jawaabahooda aan idin soo gudbinay. Insha Allah janaalkeedana rugmada asxaabtiina la wadaaga. Daawashadiina waad ku mahadsantihiin. Mahadsanidin.